Asalaamu calaykum asxaabta kusoo dhawaada kulan kale oo aad u xiiso badan qaybtan waxaan uga hadli doonaa sida googlaha wax looga baaro waxaan ka hadli doonaa qaababka ugu fiican waxa aa baartay aad dib ugu heli kartid siba ardayda inta badan qof walba googluhu isticmaalaa kaas baan xooga saari doonaa videogan aaduna u kooban yahay please ka faa'iidaysta waxaan uga hadli doonaa saddex qaab oo baaritaan loo sameeyo sida inaad qoraal wax ku baartid sawir cod sidoo kale muxuu ahaa qaybta ugu dambeysana waxaan rabaa inaan uga hadlo trickska wax ku baari kartid marka aan ku bilaabo googlaha sida horta inta badan xogta u kaydiyaa sideebuna muhiimada ugu kala yeelaa waxaa jirta waxa la dhaho crawling index iyo ranking saddexdan erey oo saddex erey oo ingiriisa laakiin si yaraan u kormaraya oo fudud crawlingka inta badan waa programyo yaryar oo systemka intiisa dambe ka shaqeynaysa oo information walba ama xog walba oo cusub oo systemka lagu soo biiriy ama googlaha lagu soo daray ama hore ugu jirtay laakiin la update gareeyey buu soo qabanaya crawlingkaas kadib markuu soo scan gareeyo wuxuu keenayaa qaybta indexka waa database weyn ama listi weyn si aad ku fahmi kartid listigaas baa xogta la gelinaya waxay u badan tahay xogo badan oo kala duwan oo isku wada eg inay ku jiraan marka qayb kaloo ayadana waxaa jirta oo isla qaybahaas ah algorithms uu googlaha leeyahay intaan saddexdan shay baa qof biniaadan gacanta kama qabanaya systemka qabanaya algorithmskaas baa waxay sameynayaan in ay informationkii ama xogtii ranki gareeyaan ayagoo ku base gareynaya locationka xogta meesha laga soo geliyey inta qof ee isticmaashay inta qof ee akhrisay pageka iyo waxyaalaha noocaasa waa la ranki gareynayaa wuxuuna kala noqon karaa isla hal xog oo kale marka meeshaas lasoo geliyo xogtaas hadday isku yara eg tahay 1 iyo 2 iyo 3 baa loo kala hormarinayaa waa aragtay marka aad search samaysid waxaa arkaysaa xogo aad u badan laakiin kuwa ugu soo sareeya waa kuwa inta ugu badan dadka ay booqdeen oo ay positive feedback badan ka bixiyeen so si kooban xogta saasaa inta badan google-ku u kaydiyaa qaybta kale xigta saddexda qaab ee wax loo baaro waxay kala yihiin haddii aan u gudbo okay saddexda qayb waxay kala tahay qayb waa search by image qaybna waa search by voice codkaa ku baari kartaa inta badanna kan dadka dhan wada isticmaalaan waa kan qoraalka ah markaa qoraal gelis ah inter dhahdid oo uu kugu baaritaan kugu sameynayo si haddii aad rabtid inaad saddexdan baheshid inta badan marka google caadiga qortid kan keliya arkaysaa mghb intaan haddaa raacisid saddexdaba waa helaysaa inaad cod wax ku baari kartid inaad qoraal wax ku baari kartid haddii aan yaro tijaabino codkoo kale asalaamu calaykum okay wuxuu kusoo saarayaa sawiro iyo qaybahaas waxaa kasii tegi kartaa all marka aad tagtid waxay ku xirnaan doontaa dabcan sida muxuu ahaa codka u dhahdid iyo luuqadda iyo waxaasoo dhan sidoo kale haddii aad rabtid inaad isagana sawir raadiso aan tusaale ahaan sawirka calanka soomaaliya aan soo qabto meesha uu yaalo ah kasoo qaad xogtan oo kale meesha uu ka yaalo aan dhaho copy image address imo meeshaan besti ku dheh search by image okay sawirku wuxuu ku saaraya sawiro kala duwan laakiin waxaan arki karnaa meeshaan kasoo qaadnay 5 marxaladood oo uu soo maray calanka soomaaliya sawirkeena meeshaan kasoo koobiyeyna waa pagekaas laakiin noocyo kale adiga sawiro kale oo haystidaa ku baari kartaa iyo sawirka wuxuu yahay haddaa rabtid muhiimadda qaybtaas maaha muhiimadda aan aad u rabay waxay ahayd inaan xooga saaro sida google-ka wax uga baari kartid oo adigoo isticmaalaya qoraal kasoo qaad hadda waxaan dhahay waxaan rabaa horta inaad capital ka bilowdid inaad si caadi u qortid inta badan isku mid u tahay googlaha isaga spelling iyo waxaas dhan saxaya haddii aan dhaho financial oo intaas aan geliyo googlaha inta badan wuxuu isaga ay tusayo financial ma ka wadaa ilaa dadka inta badan way wada yaqaan kaas so marka waxaan rabaa inaan qoro financial management book oo kale inaad dhahaa laga yaabaa okay book marka aan dhaho wuxuu ii keenayaa buugaag badan amazona kasoo bilaabata haddii aan rabo buugaag aan iib ahayn oo kale waxaan
inta badan raaci karaa minus haddaad aadid waxaa dhehaysaa minus buy waa iibsigoo kale marka kuwii la iibinayo wuu kaa reebayaa laakiin weli kuwii saxda ahaa aan rabay meeshan inaynu ku jirinaa laga yaaba ama aanan arkaynin inaa kuwa PDF ah ay yihiin. Okay, maxaan sameeyaa si haddaa rabtid inaa u heshid buuggaana soo PDF ah tan ugu muhiimsan meeshan waayo file type aa leedahay. File type marka aad qortid waxaa leedahay colon 2 dhibcood PDF marka aad dhahdid wuxuu kuu keenayaa buugagta PDF-ka. Hadda kan fiiri waa PDF, kan waa PDF laakiin weli waxaa laga sii yaabaa in aadan rabin kuwaan laftirkooda oo buugaag kale iyo nooc kale aad rabtid. Maybe waxaa rabtay financial accounting intaan qorin oo accountingka double quotation aa dhexdiisa gelinaya accounting marka aan dhaho intaraan leeyahay. Marka hadda buug walba uu keeni doono accounting waa inuu qasab ku jiraa ereyga accounting. Kan 497 page waaye PDF waaye. Haddaan ku dhufto wuu igeenayaa buug dhan oo dhammaystiran haysataa. Waa sida ugu sahlan maadaama arday tahay wax walba inaa iibsatid marabtid inaa wax walba baartid oo casharadaada iyo waxaaga dhan aa ku baaratid arabtaa. Sidoo kale qeybahan kore isticmaalkooda aad u fiican yahay. Haddaa rabtid inaad sawiro kana tegaysaa, haddaa rabtid books, haddaa videos rabtid sidoo kale haddaa more dhahdid finance ama maps uu kusoo saaraya. Midda kale aan aad u rabo inaan qeybtan niga tuso waxay toolska markaa imaatid waxaad tegi kartaa buugaagta xilligii lasoo saaray ama buugaagta xilligii lagu update gareeyay systemkeena oo Google-ha inaa heshid oo kale. Haddii aan anytime meeshan aan dhaho let's say book past year sanadkii ugu dambeeyay lasoo dhigay oo kale arkaysaa 2021 waaye buuggan 2021 waaye waxaan hadda kuma dhufanayo waayo hadda kanoo kale waa jaamacad kanoo kale waa asagana edu.bk waa jaamacad kale waa buugaag jaamacaduhu soo geliyeen laakiin internetka ay soo dhigeen. Waxaa laga yaabaa xogtaan inaad ka aradan tahay oo aadan aqoonin sida loo baaro laakiin ani wax kale hadda ma sameynin. File type colon PDF aan qoray sidoo kale accounting oo ii muhiimsanaa ereygaana waxaan dhexgeliyey quotation. Waa sida ugu fiican aad wax ku baari kartid. Commentiga igu soo sheega haddaa ku qanacdeen iyo haddii muxuu ahaa aad rabi lahaydeen inaan si dheeraad oo qoto dheer aan uga hadlo way jiri kartaa noocyo badan oo tiro badan in loo isticmaalo waana waxtar badan uuna leeyahay. Okay, sidoo kale haddii aadan rabin ka waran PDF laakiin sanadka wax intaa ku qori kartaa laftirkeeda year inaad dhahdid colon aad dhehaysaa 2021 buugaagta soo baxa dhigi karaa. sidoo kale toolskana inaad tagtid laftirkiisa waxaa leedahay past year ku qoran past year-kana kasii bedeli kartaa custom range aad dhigi kartaa. Custom range markaa dhahdid xilligaa rabtid aad dooran kartaa. Kasoo qaadbo inaan rabo sanadkan bilowgiisii January 1 ilaa hadda oo la joogo marka aan inaan raadi rabo waxaa arkaysaa 22 January buuggan lasoo publish gareeyay wuxuu dhaxeelaa gov.job notes haddii aan ku dhufto uu igeenayaa download uu leeyahay maraba laakiin inaan download gareeyo sidoo kale kan waa ku tegi kartaa isla PDF hadda PDF waan ka tagnay laakiin weli waa gelin kartaa waa type PDF aa leedahay. Marka akhyaarta qaybtaas aad ugu muhiimsaneed oo aan rabay inaad fahantaan sida loo isticmaalo quotation-ka iyo qaybahaas. Sidoo kale haddaa rabtid buuggan inuu qaybo kale ama ereyo kale ay sii raacaan meesha financialka gadaashiisa ama management iyo waxaas oo kale u imaado waxaan dhihi karaa oo title-ka buugga uu dheeraado asterisk-aan dooran karaa ama starka haddaan doorto buugga financial accounting keliya ma noqonayo markaan xogo kale oo dheeraada soo raacaya.